nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la dheelmiyay ayuu wuxuu arkay caraf aad u wanaagsan. jibriil ayuu weydiiyay maxay tahay caraftan. jibriilna wuxuu ku yiri waa gabadhii timaha u shalayn jirtay gabadhii fircawn iyo caruurteeda. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay markaa gabadhii timaha u shalayn jirtay gabadhii fircawn cidda ay tahay. wuxuuna ku yiri maalin iyadoo timaha u shalaynaysa gabadhii fircawn ayaa waxa ka dhacay shaladii. markaas waxay tiri bismillah. kadibna gabadhii fircawn ayaa ku tiri yaa waay qofka aad sheegaysid ma aabahayba. markaas ay ku tiri maya ee waa rabbiga aabahaaga iyo aniga rabbigayga iyo adiga rabbigaagaba. gabadhii waxay tiri aabahay muusoo sheegay arinkan. gabadhii timaha u shalaynaysa waxay ku tiri haa usoo sheeg. gabadhii way baxday aabeed markay u sheegtana fircawn wuxuu u yeeray gabadhii timaha u shalaynaysa gabadhii fircawn wuxuuna ku dhahay yaa waay rabbiga aad sheegaysid oo aan aniga ahayn. waxay ku tiri waa rabbigayga iyo adiga rabbigaaga. fircawn wuxuu ku yiri haloo karkariyo saliid hana lagu rido. marka iyadii ciyaalkeediiba waxaa lagu riday digsigii karkarayay yacni weel macdana oo karkaraya lagu riday. markii lagu riday gabadh ilmaheedii markii hore lagu riday kadibna canugii ugu dambeeyay ay nuujinaysay ay u jilicday. canugii wuxuu ku yiri cadaabka ilaahay iyo kan maanta aan ku jirno kan ayaa daciifsan ee kan iska gal. canugeedii iyadoo arkaysa lagu riday dabkii kadibna iyada lagu riday. markii intaas ay ku dhacday ay dhimatay waxay ku gudubtay geesinimo. tanna waxay martay caqabad kamid ah caqabadooyinkii iimaanka. haddaba caqabad kasta oo iimaan iyo in diintaada lagugu dhibo ka sokayso waa caqabad aad u fudud. haddaba aan barnaamijkeena bilaabano. kusoo dhawaada ilma xawaa barnaamijkeeni duni dumar. barnaamijkeena maanta ciwaankiisu wuxuu yahay caqabadaha gabdhaha ay la kulmaan. dunidan waxay tahay duni aad u caqabadooyin badan. noloshana dhadhan ma yeelanaysa caqabad la'aan. laakiin caqabadooyinka qaar iyo dhibaatooyinka qaar waxay u baahan yihiin xalal in loo helo. sababtoo ah nolosha ma wanaagsanaanayso dhadhanna ma yeelanayso inta dhibaato aad u tiro badan lagu dhex jiro. dunida waxay u baahan tahay in nolosha ay ahaato balance oo marna dhibaato marna wanaag marba dhinac ay ahaato. haddii qofku uu ku jiri lahaa nolosha wanaag kaliyeeto aanan xanuun iyo dhibaato aan lahayn nolosha waxay noqon lahayd mid lagu dhibaatoodo oo aan la noolaan karin oo aan la xamili karin. sidoo kale nolosha markay noqoto caqabadaha aad u tiro badan waxay noqonaysaa iyadoo sidoo kale mid aan la xamili karin. okay caqabadaha waa mid waxa qurxiyo in aan anaga noolaano. dumarku waxay la kulmaan dhibaatooyin aad u tiro badan sida ay ragguba ula kulmaan balse dumarku waxay leeyihiin khaas wax u ah. tusaale kale gabdhuhu diiniyan dadka diinta ay ka bartaan waxay kala kulmaan dhibaatooyin. maalmahan waxaa aad u socdo wax la yiraahdo feminism. sidoo kalena waxaa socdo dadkii diinta culimadii u hadlayay. gabadhi markay diinta meelaha ay ka baranaysa ay kala kulanto waxyaabo dhibo. tusaale kale in la yiraahdo waad liidataa oo diin ahaan waa liidataa caqli ahaan waa liidataa. kadibna ay aragto social media dunida maanta ma xirxirno sidii hore ugu xirnaan jirtay. gabadhuna kuma eko gurigeeda iyo goobtii waxbarashada. kadibna ay social media ka dhex aragto dad ka hadlaya feminismka oo u sheegaya inay xur tahay inay caqli badan tahay inay ninka la siman tahay. waxay dareemaysaa meeshan inay wax ka jiraan. in la yiraahdo ninka lama sinid waad ka caqli yar tahay waad ka din yar tahay. haddana la yiraahdo ninka waad la siman tahay waad ka caqli badan tahay. mararka qaar marna waad ka caqli yar tahay marna waad la siman tahay. sida insaanku uu yahay darajaad oo mararka qaar ay noqon karaan qof aad u sareeya mararka qaarna uu noqon karo qof aad u hooseeya. tan waxay noqotay marka dhibaato gabdhuhu ay marna aadaan dhinaca feminismka oo yiraahdaan bal horta waxaan aan iska dayno. marna ay aadaan dhinaca diinta kaliya oo yiraahdaan waa run diinteena haddii aan ka hadalno diinteena xaqa ugu weyn ee gabar ay heli kartay siisay. xaqeena saxda ah ayayna siisay. marna diinteena nama dhihin nimanka waad ka liidataan. laakiin dadka noo macneynaya qaarkood ayaa waxay noo sheegaan dhibaato. waxay idin sheegayaa dhibaato aan aniga la kulmay maalin anigoo iskuulkii joogna oo aan diinna ka baranayna meeshii macallin wuxuu sameeyay jadwal soo dejiyay. jadwalkii markuu dejiyay isla isbuucii dhexdiisa jadwalkii uu ka laabtay. haddana jadwalka loo dejiyay wuu ka laabtay. isbuuc dhexdiisa 3 mar uu jadwal dejiyay wuuna ka laabtay. kadib gabar ardayd kamid ahayd waxay ku tiraahdaa macallin hal jadwal nasiib maadaama aan anagu nahay dad shaqeeyo oo aad waqtigoodu u yar yahay oo meeshan ku imaada si rafaad leh oo waqti badan nagu soo qaadato.
macalinku wuxuu ku yiri mataqaanaa wuxuu ku dhahay waxaad tihiin naaqisaatu caqlin wadiin anigana uma baahnin gabar inay ii taliso macalinka kaliya ra'yiga ku darsanay marka sheekadii waxay noqotay in lala doodo macalinkii oo la dhaho kayf say ku noqon kartaa gabar naaqisaatu caqlin wadiin nabigu wuxuu ku yiraahdaa nabiga dhahay xadiis ayay ahayd xadiiskaas waxaa jira qaladaad loo fahmay laakiin waxaan u daynaynaa dadkii diinta naga yaqaanay oo ayaga si fiican u soo baaray laakiin waxay tahay diinta iyo dacwadu waxay u baahan tahay usluub aad u wanaagsan in dadka loo gudbiyo ma ahan usluub in dad la yaso adigoo ka waran akhrinaya ya ayuhan naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum kadibna adigoo leh ragga iyo dumarka waxa wanaagsan ragga xagee geen doontaa inna akramakum 'inda Allahi atqaakum kabaran hadii aan dhahno ragga iyo dumarka si kastay gabadhu u dadaasho ninka ku diin ma ahan way ka diin hooseysaa wayna ka aqli hooseysaa ma dhihi karnaa qofka maanta diinta kaliya ka haysta laa ilaaha illa Allah ee aan ku dhaqmin iyo Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha waxa diin wanaagsan ninkaas ma dhihi karno waxa u baahanaa marka in si fiican loo fahmo diinta caqabada kale oo jirta waxay tahay feminismka ma ahan sida noo muuqata anaka sida noo muuqata waxay tahay xorriyadaad helaysaa raggaad la sinaanaysa iyo waxyaabo lamid ah ragga waan la simanahay mana la sinin ragga waan la simanahay mararka qaar oo xaqeeni caadiga ah waan kala simanahay xitaa diinta hadii aan anaga salaad dukado iyo asagana uu ninku salaad dukado sidii salaada loo kala gutay iyo kala wanaageeda lagu kala sareynaya ma ahe nin waaye iyo naag waaye lagu kala sareynayo sidoo kale hadii gabadhu dambi gasho ninkuna uu dambi galo lagu kala sareynayo nin waaye iyo naag waaye asaga adiga konton ajir ah lagu siinayo isagana lama siinayo 100 ajir ah sidoo kalena dambiyada waan u wada simanahay waxaan ku kala duwanahay jismiyan waxaan ku kala duwanahay dabeecad ahaan sida gabdhuhu qaarkoodba ay u kala duwan yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof kasta wuxuu siiyay awoodo dhinac uu badan karo wuxuuna siiyay awoodo dhinac qaar uu yar yahay marka dhankii diinta dadkii gabdhaha u baranayna waxay ka keeneen caqabadooyin sidoo kale feminismka aadka u baahayna wuxuu keenay dhibaatooyin kale okay xagee dhexdhexaadan aadna gabadhu waxay si sax ah wax ku ogaan kartaa waa inay diinteedii barataa maadigii barataa ay noqotaa qof fikira oo wax aqriya oo wax fahma caqabadaas xalkeedu waa taa qofnaha ka ogolaanin inaad tahay qof liito caqabadooyinka kale iyo dhibaatooyinka kale ee gabdhuhu waajahaan waxaa ka mid ah koriinshaha waalidka hooyada iyo aabaha ku dhalay mararka qaar inay noqdaan dadkii ayaga ku dhibaayay waagii hore hadii gabdhaha ayagoo nool la duugi jiray ma ogtahay in maanta gabdhaha iyagoo uurkii ku jira la dilo waxaa ka jira aasi inteeda badan in uurka la baaro oo markii la ogaado in waxaan uurka ku jira uu yahay gabar la toogto oo la soo rido ilmahaasito okay marka waagii hore hadii la dili jiray dilitaan caadi ah maanta waxaa la dilaa dilitaan isagana caadi ah laakiin iyadoo weli adduunkii imaana la dilaa mashaakilka kaleentood oo kamid ah koriinshaha ilmahuna waxay tahay waalidka inuu kala saaro gabar iyo wiil in la yiraahdo adiga wiila tahay iska soo ciyaar iska baax laakiin gabadha la dhaho yiri walaalka dharka u dhaq walaalka cuntada u diyaari walaalka waaye wiil waaye boqollo waaye kontonleeta iyo waxyaabo la mid ah taasoo noqota markaa mashaakil gabdhihii ay ku koraan xataa mararka qaar ku abuurto cudurro nafsi ah ku sameyso waxaad arkaysaa gabdhaha badanaa markaad maanta la sheekeysatid hawa ugu yaraada ee waxay qabtaa xanuun nafsi ah taasoo uga imaaday gurigeeda iyadu kusoo kortay oo kusoo barbaartay marka waalidka hadii uu caqabad kugu noqdo aniga waalidkii ma bedeli karna laakiin waxaan sameyn karnaa in waalidka wacyigiisa aad koriso hooyada inaad u keentid boog hooyada inaad u keentid video hooyada inaad u keentid waxyaabo ay wax ku fahmi karto sideedana ilmaha waxay u baahan yihiin hadii aad ilmo dhashid in cadaalad aad u sameysid okay anaga waxa maanta haysanaa sabirkii ilmaheena ay naga qaadan kari lahaayeen adiga maanta sabirka aad ka qaadatay hooyada iyo aabahaaga miisaan saar oo ku fikir marka ilmahaaga sabirka noocan ah ma ka qaadan lahaayeen waxaad sameysaa hooyada meesha aad isleedahay way ku qaldan tahay ka tirtir oo maxay samee ku bedel wax kale oo wanaagsan si ilmahaaga beri ay u arkaan nolol fiican ay ugu noolaadaan waxaan arkay maalin gabar dhahayso
aniga aabahay waa necbahay waxaan sameynayna barnaamij waxaan joognaa Madiino waxay tiri aabahay waa necba gabadhaasay aabaheed ma necbo laakiin markii aan weydiiyay aabaha qofka adiga hadaa qof necab tahay waxaad ogaanaysaa qofkan waxaa jecesha inuu dhinto waxaa jecesha inay dhibaato kasta ku dhacdo waxaadna necab tahay wanaag kasta qofkaas uu helay gabadha aabaheed ma necbo lama jeclo inuu dhinto lama jeclo in dhibaato ay ku dhacdo noloshiisa inay dhibaato soo gaarto ma jeclo inuu xitaa murugooda ma jeclo laakiin mana jeclo aabaheed yani waxay ku jirta gabadha marxalad ah jecel iyo naceeb inta u dhaxayso gabadhi waxay ka sheeganaysaa waxay ahayd in aabaheed wiilashii iyada la dhashay uu waxbaray uu heer gaarsiiyay iyadiina ay tahay kaliya shaqaalaha guriga u joogo wiilashii iyada la dhashay sida gabadhaas maalintii ay sheegayso waxay ahayd gabar kaliya la nool iyada aabaheed okay mashaakilka markaan haysta wuxuu yahay waalidka in aysan waxba baranin okay waalidkan waa inaan barnaa oo aan fahamsiinaa maanta waaqica jirana aan la socodsiinaa waalidka markuu wax ku weydiyo waxa la may hooy waxaas adiga ma taqaanid aaba adiga waxaas ma taqaanid okay taas inaan bedelno sidoo kale waxaa jira gabdhuhu caqabado kale ay kala kulmaan dhanka guurka oo ah meeshii ay nolosheedii ku qaadan lahayd laga yaabo inay ku dhex noolaato haddii ilaahay uu qadaro 60 sano ilaa 80 sano kaas wuxuu yahay mid lagu qasbaayo inay la noolaato shakhsi aysan ku qanacsaneen in nolosheeda ay ku ag qaadato guurka waalidka intooda badan ma bixiyaan doorasho laakiin wiilka waxaa la siiyaa doorasho waxaa laga inuu wiilka yiraahdo hooyo waxaan rabaa gabadhiina loo soo qasbo hooyada iyo aabaheed ay u soo qasbaan wiilkan inay siiyaan taasna waxay tahay mashaakilka ay gabdhaha kala kulmaan guurka gabadha markii ay guursato kadib dhibaatooyinka ay la kulmi kartana waxaa kamid ah in ninkii ay guursatay uu la dhaqmo sidii qof shaqaale ah oo kale inuu yiraahdo haddii aysan hool ii qabanaynin cunto ii karinaynin dharkayga dhaqaynin maxay ka tahay aniga xaaskayga okay maxaa guriga u keensaday inuu dhaho taasna waxay tahay dhibaatooyinka ay gabdhuhu la kulmaan intooda badan ay isku dayaan in ay ninkaaseti hooshiisa ay qabtaan kaliya habeen iyo maalin ay isku dayaan in ay gurigaas nadaafadiisa iyo cuntadiisa ay sameeyaan xataa markii ay ilmo dhasho kaliya ilmahaas habeenkii iyada ay u soo kacdo maalinkiina iyada ay u soo jeedo waxaa jira nin hadda ka hor dhakhtar psychological uu tagay wuxuu ku yiraahdaa aniga waxay haysato mashaakil depression iyo waxyaabo noocaas ah ka caawinaya waxaan u baahanahay in la idaabeeyo wuxuu ku dhahay maxaa kugu dhacay xanuunka ku haayo muxuu yahay ninkii wuxuu dhahay ani xanuunkii haay waxaa waaye shaqada waan ku daalaa dhibaatooyin badan aan shaqadiga haysto stress badan aan dareemaya okay xaaskaaga maxay samaysaa wuxuu ku dhahay xaaskayga ma shaqeyso okay subaxdii yaa cuntada idin kariyo subaxdii xaaskayga cuntada kariso bas iyada cuntadaas ay karinaysaa aniga iyo ciyaalkay cunto siinaysaa kadibna ilmaha iskuulka geynaysaa wax kale ma sameyso qadadii idin sameey ilmaha markii iskuulka ay geysay ka soo laabato waxay noo sameysaa qadadii waxay noo sii diyaarisaa qadadii aan cuni lahayn gurigana way nadiifisaa okay iyada ma shaqeyso shaqo la'aan waay cashadii idin sameey markii ilmaha ay qadada kariso ilmaha iskuulka doontaa ilmaha markii iskuulka doonta ee keenta ee qada siisa ee u qabeeso ay seexisan waxay guda gashaa cashadii inay diyaariso laakiin ma shaqeyso iyada waxa xaqeeda waay ma shaqeyso guriga joogtaa okay marka adiga shaqada ka imaad maxaa sameysaa lagu dhahay aniga waan daalanahay moogtahay shaqan ka imid waxaan u baahanahay inaan nasto aniga xogaa waa yara nastaa markii aan soo kacna casiriyaa la ii keenaa journal iyo waxyaabahaas aan akhriyaa fiidkiina waxaan aadaa saaxiibaday xogaa inaan la soo yara sheekaysto okay maxaa xaaskaagana xaaskayga iyada ma shaqeyso okay habeenkii ciyaal markuu soo kacayo u soo kaco xaaskayga u soo kaca sababtoo ah biri shaqo ma aadays iyada wuxuu ku dhahay marka dhakhtarka adiga ma shaqeeyo mise xaaskaaga shaqeeyo xaaskaaga waxay shaqeysaa shaqo aan nasasho lahayn aan break lahayn aan fasax lahayn malahan weekend malahan bilo oo la fasaxay malahan shaqo waxay shaqeysaa iska socota ah adigana waxaad ka caawinaysaa dhibaato qofka u baahan daawo nafsiyadeed in loo sameeyo waa xaaskaaga adiga ma ahan marka aragtida ninka Aasiyaanka ee ama Afrikaanka ee uu arkayo dumarka waxay tahay inay yihiin dad shaqeey inay yihiin waa inay hawsha guriga qabtaan taas shaqadooda ah shaqo kale oo banaankaan ma qaban karto guriga waa inay ka shaqeysaa ilmaha u haynaya ilmaha
ma ahan waajib gabadha kaliya ta saaran ee waa waajibna wada saaran. waa wax loo baahan yahay ragga iyo dumarku inay ka wada hadlaan oo ay ka wada tashadaan inta aan la guursan. inta aan la isguursan oo aan la isku imaan waxay u baahan yihiin in laga fakaro oo xuluul loo sameeyo ciyaalka imaan doona mustaqbalka. taas waxay ahayd caqabada gabdhaha ay la kulmaan dhanka guurka. waxaa sidoo kale jira caqabado ay gabdhuhu la kulmaan markii ay dalbadaan inay shaqeeyaan. gabadha markay u baahato inay hesho waxyaabo dakhli iyada u khaas ah wax markay hesho waxay ku qasbantahay inay shaqeyso. shaqooyinka markii ay dalbatana gabar iyo wiil markay shaqada isla dalbadaan isku shahaado heesto waxa la hormarinayo waxay tahay wiilka. waan mujtamaceena waxa uu ku fikiraa inay tahay gabar waaye kan laakiin wiil waaye. ma aqaan sababta u kala hormarinayaan. caqabadaha gabdhaha ay la kulmaan intaan kuma eko aad ay u tiro badan yihiin laakiin tan waa qayb kamid ah dhibaatooyinka dumarku ay la kulmaan. dhibaatooyinka weligood ay soo jireen wayna sii jiri doonaan laakiin waxay u baahan yihiin xal. waxaan idin la wadaagayaa dhowr qodob oo aan isleeyahay wuxuu xal u noqon karaa yacni wax yar oo daawo ah wuxuu u noqon karaa mashaakilka jiro. marka koowaad gabdhuhu waxay u baahan yihiin in ilaah subxaanahu wa tacaala ay ku xirnaadaan. markii aad ilaahay ku xirnaatid waxaad helaysaa ilaahay la jirkiisa. ilaah hadduu kala jirana ma hoogaysid mana qasaaraysid. midda xigta waxay tahay in qof kasto aad libintiisa u qirtid. gabdhaheena dhibaatooyinkaas waxaaba ka mid ah in iyagu ay markii qof qalad uu ka galo ay isku wada daraan qaladkiisii. ninkeeda hadduu u wanaagsanaa uu dhibaato ku sameeyo inay tiraahdo wuu xumaa weligiis wanaagna weligay kama arkin. taasna waxay u baahan tahay in anaga naftirkeena aad qof kasta u qirno libinta iyo wanaaga uu leeyahay. inaan wafiyiin noqono dad wax oofiye inaan noqono inaanan dadku xaqirin. Xudayfa ibn al-Yaman ayaa wuxuu yiri ma ogtahay sababkii aan ugu baaqday dagaalkii Badr inaan galo. wuxuu dhahay sababta aan ugu baaqday waxay ahayd Quraysh waxay qabsadeen wadadii aan Madiina ku soo socdo waxayna iga qaadeen balan ah in aanan galin dagaalka Badr. markii aan Nabiga sallallahu alayhi wasallam u imidna waxaan u sheegay aniga iyo Quraysh wixina soo kala dhaxmaray. Nabiguna wuxuu igu yiri u oofi balankooda. Nabiga sallallahu alayhi wasallam yuu leeyahay ma taqaana u oofi balankooda waa gaalo ay bari isdagaali rabaan. haddaba waxaad u baahan tahay inaad qofka u oofisid balankiisa wanaagiisa. oofinta ma ahan kaliya in balan la kala galo. oofinta waxaa ka mid ah in aadan qofna dafirin xaqiisana aadan xaqirin. markii aad adiga qofka libintiisa u qirtid waxaa imaanaysa bedelkeeda in adna libintaada lagu qiro. sidoo kale xalka waxaa ka mid ah in gabdhuhu ay wax bartaan. gabdhaha xalka ugu muhiimsan ee heli karaan waxaa waaye in wax bartaan. haddii aadan wax baranin weligaa dhibaato kama bixi doontid. waxaad u baahan tahay inaad wax barato inaad wax akhrisato. haddii waqtigaas leedahay wuu kaa tagay waqtiba kaama tagaye haddii aad is leedahay hadda waxba ma baran kartid waxaad samayn kartaa inaad ganacsatid. ganacsiga laftiisa wuxuu kaaga baahan doonaa inaad wax baratid. taas waxay tahay marka lagama maarmi karo inaad wax baratid markay ugu yar tahay maalinkii 2 bog akhri oo buug ah oo aad wax ka faa'iidi kartid. taas waxay ku kaafin kartaa noloshaada inta ka dhiman. intaas waa intii aan islahaa gabdhuhu waxay u noqon karaan xal. dhibaatooyinkan way jiraan. dhibaatooyinku way tiro badan yihiin xalkuna wuu tiro badan yahay. waxaan iskula kulmi doonaa barnaamijka ku xigo. wassalaamu calaykum.